mid horta waa ogeysiis oo dadka in lagu baraarujiyo lana baro sharciga ilaahay sida uu inoogu maamulay bilaha aynu wax ku xisaabsanana sida uu u kala magac bixiyay iyo bil walba sida ay tahay iyo sharciga uu ka dejiyay sidaas in loo dhaqmo ilaahay uu in amray waxaa jira marka bilo la yiraahdo bilaha xurmada leh oo 4 bilood ah oo 12 bilood ee sanadka 4 kamid ah ayaa waxa la yiraahdaa ashhurul hurum ayaa la yiraahdaa waxaa kamid ah marka bishan hadda aan galnay ee rajab la yiraahdo marka bishii rajab in la galay bal horta in la isu sheego oo ay ka dhalato markaas kadib in la ogaado in aan galnay bil kamid ah bilaha xurmada leh maxaa laga wadaa yaani ajirka lagu dhax sameeyo bishaas wuu ka badan yahay ajirkii bilihii kale dambiga lagu sameeyana wuu ka dambi weyn yahay bilihii kale maxaa yeelay waa waqti ilaahay ugu talagalay dadku inay arrimo ku qabsadaan xigmadda bilaha xurmada leh waxa culimada ay ku sheegeen bishan rajab xurmadeeda waxaa loogu talagalay dadku maadaama ramadaankii uu soo dhow yahay inay cimradii iyo say u soo cimraysan lahaayeen inay bil helaan qof walba uu meeshiisa ku og yahay in bil xurmada la galay ruux taaban kara uusan jirin haddii hore la isu dagaali jiray oo bil xurmada la soo gaarayna dadkoo dhan waxay qabaan ogeysiis ayna dadka dhexdooda ka helin ilaahay uu dadka ogeysiiyey laana ogeysiinta ilaahay oo sidaas yeelada ah dadkoo dhan way wada maqleen marka kii maqlay oo ogolaadayna waa qof muumin ah kii maqlay oo diidayna oo xurmadii ilaahay uu bisha siiyey aan dhag jalaq u siinayna asna dambigiisa ayaa weyn dadkii hore islaamku markuu soo degayay casru jaahiliga dhihi jiray bilahan oo kale markay soo galaan waxay dhihi jireen bil xurmada ayaan galnay dagaalka aan joojino markaas ay isku khilaafayaan inaysan joojina u soo baxaysa waxay leeyihiin saan yeelnahay marka waa bil xurmo leh waxay dhaayaan aan ka daysano si dukaan oo alaab lagu gado oo kale xurmada bishu ay leedahay aan ka daysano aan ka qaadno ayagoo ka qaaday oo kor u haya marka yay dagaalkii sii wadaan waxay u maleeyaan ka qaaditaanka ayagu ay dhaheen waan ka qaadnay bishii xurmada inay bishu caadi iska noqonayso oo xurmo la'aan ay noqonayso waxayna ogeyn bishani ilaahay baa xurmada saaray marka uu saarayna ma aha shalay iyo maanta ma aha waa maalintii cirka iyo dhulka la abuuray cirka iyo dhulka markii la abuuray oo maalmana la sameeyey lan cirkan dhulkan markii la abuuray waxa lagu abuuray maalmo wama khalaqna as-samawati wal ardi illa baynahuma bil haqq waxa fi 6 ayaamin wama massana min luqub lixda maalmo jira ayay ahaayeen maalinta mesela ahada laga bilaabay markaas sabtida la dhameeyay jumca la dhameeyay ahad isniin talaada arba'a khamiis jumca lixdaas maalmood lagu sameeyay maalmahaas la sameeyay samaawaadkii arada la sameeyay ilaan bishu waxay ka dhalataa maalmihii oo isdaba marmaray 30 maalmood markay dhamaadaan bil ayaa la yiraahdaa 12 bilood markay soo wareegtaan sanada la yiraahdaa markaas shaabad waxa korka laga saaray bilahan rajab iyo dhilqaada iyo dhilhijja iyo al-muharram shaabad waxa korka laga saaray inay yihiin bil xurmo leh maxaa ka dhalanaya marka hadii dagaal uu socday dagaalku inuu joogsado markaas waxay sameeyay jireen markay rajab soo gaaran cimra la aadi jiray si oo loo aado markii ramadaanku u dhamaadana xajka la isu diyaarin ashhurul xajka ayaa la gaaray xajka ayaa la aadaya xajku carafo ku dhamaadaa carafo markuu ku dhamaado hadana bisha ka dameysa dadku Makka ma wada deganay meel kale fog bay degan gaadiidka la isticmaalayna waa gaadiid yaani ama geel aha ama waxyaabo bilow la isticmaali jiray bil ayay u baahan yihiin marka inay ku sii noqdaan oo reerahooda ay ku tagaan intaas oo nabad ah ayuu ilaahay u cilaamiyay saasana la isku ogaa goorma marka inagoo Soomaali ah oo muslim ah goormaynu laalnay oo inuu yaani hatta si asr jaahiliga ay sameyn jireen oo xeeladaysiga hatta aynan xeeladaysanin oo aynan dhahaynin war maalmahan saan colaadeeda meeshan ka jirtay laakiin waxay naga soo hoos gashay bishii rajab ayaa dhalatay labada dhinacba ma ogtiin rajab inay dhalatay ha sidii hore la isoo ogaa bil xurmada hadii la gaaro gaaladii la dagaali jiray hatta waa la joojin jiray markay biluhu dhamaadana waxa la dhigi jiray fa idan salakha al-ashhurul hurum faqtulu al-mushrikeena haythu wajadtumuhum haday biluhu dhamaadaan xurmada leh markaas kadib la dagaala laakiin naga Soomaali hadaan nahay maba inoo kala soconaba bil xurmo leh iyo bil kale waxaan ugu filan inaan isdagaalno asbaab la isku dagaala inaan helno bis hadii bil xurmo leh asbaab isku dagaal ay meesha ka soo baxdo ama doorashooyin ay ku soo aadaan ama waxyaabo kale ku soo aadaan bishana bil xurmo ay tahay oo asbaab la isku dagaali kara ay meesha ka dhalato lama dhaayo war bishii xurmada ayaan ku jirnaaye bal bishaan horta dib inoogu dheeyeen isdagaalin qof wal meesha joogo markay bishan inoo dhamaato
kadib baan isdagaalaynaa taas xataa ma banaano hadday bishu dhamaato xataa muslim inuu isdagaalo ma banaano laakiin bal meesha ugu dambaysa xataa sibay dhaantahay in uun yani bisha xurmada leh xurmadeedii la ogaado ayaa loo baahan yahay marka taas mid bay ahayd in la is ogeysiiyo siday bishan xurmo u leedahay rajab ayaa la yiraahdaa yani bisha bilaa xurmada ay ku jirtaa wayna bilatay Soomaali meel kasta ay joogtana la gaarsiiyo in la yiraahdo qofkii raba inuu dhibaato iyo dagaal ay noqoto bisha xurmada leh hal ogaado waa lagu jiraa hana loo diyaar garoobo bisha ramadaanka oo nabigu uu sameeyay jiray haduu bishan soo gaaro wuxuu ku ducaysan jiray Allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa ballighna ramadan ilaahu noo barakay rajab iyo sha'ban ramadan ilaahu na gaarsi ayuu ku ducaysan jiray marka in halka loo jeesto la ducaysto ramadan loo hiloobo cibaado iyo istighfar la aad ayaa rabaaya goormayba istidaad dagaalo iyo dhibaato iyo dambi ay inoo noqoto wax iska caadi ah taas waxa uu aan shaydaanka wuxuu jecel yahay dadka dambiga ugu badan inuu geliyo bil xurmale marka dambiga uu gelinayo uu ka dambi badan yahay bilii kale caadiga ah bisha marka aad buu shaqaysanaya si xoog leh si uu dadka dambi badan u geliyo oo ay dadkaas u dambaabaan ayuu u qurxinaa waxyaabo xun marka in la iska jiro in shaydaana lakum aduwwan fattaqiduhu aduwwan inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir taas marka waxay bisha xurmada iyo ahmiyadeeda ilaahina uu inajiri yaa ayuha alladina aamanu la tuhillu sha'air allahi wala shahr al-haram habanaysanina bilaa xurmada iyo ilaahay diintiisa calaamooyinkeeda habanaysanina haddii la xurmeeyo oo sida ilaahay inoogu sheegan u ogolaanana ammaan ayaan ku helaynaa ilaahay wuxuu yiri dalika man yu'azzim hurumaati allahi fa huwa khayrun lahu 'inda rabbih qofkii ilaaliyo weyneeya wuxuu ilaahay xurmeeyay oo xurmada aan ka qaadin ilaahay agtiisa ajir weyn ayuu ka helayaa marka ajirkaas inaan raadsano dambiga shaydaanku inala doonayana inaan ka fogaano intaas khudbada hore ayaa aad qaybta dambe waxay ahayd Soomaaliyeena waan dhibaataysanahay ficlan oo inta gudaha ku jirtana way dhiban yihiin dadkeena banaanka u baxayna ha u maleynina inay raaxa ay ku nool yihiin waxa la soo sheegayaa waxyaabo in la iska tawjiiho u baahana inaga muslim ayaan nahay dhaqankeena waxa kamida caruurta waxaynu u dhalayno waxaan u dhalnaa qoyska waxa loo sameeyaa in hadow odayga ama hooyadu haday ilaahay cimri uu ku simo oo duqoobaan ilmahan ayaa insurance meesha ay gaalo ama caymiska ka yiraahdaan inaga caymiskeena waa ilmaheena ayagu waad arkeen oo ilmo badan ma dhalaan laba cunug bis ay dhalaayaan maxay laba cunug u dhalaayaan waxay u dhalaayaan horta ilmo inuu soo duceeyo ay rabaan meesha ma joogo duca ma rabaan ayaga gaal dhaay wali maartay ii duceeyo ilaahay khayr idin siiye ma jirto duca ma qoran ayaga in loo soo duceeyo oo markuu qofku dhinto waladun saalihun yad'u lahu gadaal uga soo duceeya xisaabtu ugu ma jirto 18 meeshuu ku soo gaaro lacagtiisa iyo accountkiisa hore loogu dhigay waxa leeyahay magaalada iska celi waaya magaalada iska celi qofkan intuu xoog galay uu shaqaysanaya lacagtiisa waxba laga googoynaya meel ba wax loo dhigaaya markuu beesh noqdo oo uu duqoobo caruur uu soo noqonayo oo haynaysa oo hooyo aaba dhahay oo gacantii naxariiseed male ilaahina wuxuu ina amray waalidka markay halkaas oo kala gaaraan inaan u naxariisano waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا حرساس وديك قد قودان هكفانين وهدبسنين هاي سوما حكومة أمان لبدا قعمود كل بمد بالبركة هبينك مركا جيفتد مرنا مديكتا البركة قعنت هذا مرنا بالحداد بركة الماء والدك واسداس الماء مركا يرايين والدك بركنايين oo waalidka orday oo shaqeynay ilmuhuna canjeeradaas iska cunaayeen cabitaankaas iska cabaayeen meel laga keenay iyo si lagu keenay ma yaqaanaan waalidkan maada lacag siiyay ya maada u diray suuqa inuu ku xamaalo maada amray xageed ka keentay waa lagu soo rafay waa lagu soo koriyay odaygii ama hooyadii adduunku isdaba socdaay waa la duqoobay markay duqoobaan gaaladu waxay sameeyaan ayagu meel waxay geynayaan daarul muslimin dadka duqoobay gurigooda